بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دموا سلام يا بشر الصوماليات ميلا كسكنتين با وعبد السلام شتلمان وطني قريب رعو سهيب أبدي سودو ولاد بانكو سلام يا كافية عثمان علي عبد الرحمن محمد بانكو سلام يا دكنا دمان بشر الصوماليات ميل كسكنتين با آذيات باندين سلام يا waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed inaan halkan xogo muhiim ah uga soo gudbiyo oo dabcan inaan wada taabanaya inaan anfacaya xogahaas oo ku saabsan mooshinka baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha mooshinka keenay iyo mooshinkii wuxuu ku saabsan yahay iyo dabcan sideen la wada soconaba in mudaba waxaan arkaynay nimanka maamul goboleedada oo iskaga hor iyo daba noqonayay meesha la haday Imaaraadka. طبعا wax kale may wadin ilaa waqtigii la soo xajiyay nimankaas waxay Mohamed Abdul Wahab Haji walaal aad iyo aad baan ku salaamayaa Abdi Soomaali adigana sidoo kale Bishaar Jaamac Ali aad iyo aad baan idin salaamayaa طبعا inoona sheergaraya Daahir Cabdullaahi walaalayaal waa Abdi Wahab booska aad iyo aad baan idin salaamayaa dhamaantiinba waxa laga yaabaa bulshada oo dhan inaan wadaar kari waayo aan idin wada salaam kari waayo iga raali ahaada waan wada jecelahay Soomaaliya hamidowdo hay saraacdo walaalayaal dabcan waxa jira wax marka ay noqoto qarannimada iyo qaranka difaacidiisa qabyaalada iyo qoloqolada iyo qoyska meel baan iska dhigaynaa waa inaynu barbar istaagno wadaniyada iyo dabcan walaal ayaan baa ma bufinayo laakiin dadka waxaan leeyahay sheekada walaal warbarta barnaamijka qaybtiisa dhamaan idin ka warrami doona arrimo badan oo ilaa xalatay ugu socday dabcan oo rag le xaal baan ka bixinaynaa arrimo noocaas laakiin saan wadaniyeena oo qabyaaladaystayaala iyagana halkan insha Allah ta'ala farriin yar oo gaaban u mari doona afkayga ku xaal baxaya laakiin soo waxaan idin soo gudbin doonaa caawa niman wadaniyiin horta baarlamaanka dhan moodo xuma Soomaalinimadii wali way noosh ummadda Soomaalida waa sida fareenaa soo kale way jiraan dabcan burburkii Soomaaliya jawaasiis fara badan iyo dad fara badan oo Soomaalinimadii ka tagay oo qabyaalad iyo qolo iyo waxyaabo noocaas ah iyagu adeegsada way jiraan laakiin Soomaalinimadu walaal waa waxaan sal guureyn oo waxaan baabayn Soomaalinimaduna sharaf bay leedahay gobonimo leedahay waxa daba dhacday aan idin soo gudbin doonaa insha Allah ta'ala xog ku saabsan baarlamaanka horta seen la wada soconaba xubnaha baarlamaanka Soomaaliya majority-gooda ama badankooda aadan cabdi wadaniga reeboodle aad iyo aad baan ku salaamayaa iga raali ahaada walaalay inta badan horta rumaan idin sheegaya Soomaaliya maasinjarka ma soo dejiyo sawaxan soo dejina hadhow halkan ka sheegi doona warnimada waxay fara badan bay ugu socotaa dagaal fara badan bay ugu socdaa rumaan idin sheegaya wax kan la igu maystaa caalankaas la igu haystaa iyo Soomaalinimada wallahi inaan been idin sheegin waa arrimo noocaas waa ka soo imka qoladaba qaado min cabdi halka wuxuu soo qoraya habar jecnimadiid war anagu Soomaali baan ahay ninkastoo qabiiliya aniga ka qolo adag qarannimada Soomaaliyeed baan difaaca Soomaalinimada ka jecelahay habar jecleedaba qaado macaan walaalayaal wax kale iska daayay war waxa la igu haystaa habar jecnimadii Soomaaliyeed haddaan hadlaba muxuu ninkii jiray haddaanu aamusnana waa salax gudhig haddaanu hadalana ariga sida laga diin maayo haddaan maanta hadlana walaalayaal waa la isu habar wacanaya ilaa Australia laga soo wacaya Ingiriiska laga soo wacaya khaati bilaahi xaafadaha la dhaxgalaya hooyadii baa la soo caayaya si aan shaxa ka baxsan oo maladooxa haddaan walaalayaal hadlo bal maxaan isku haysanaa Soomaali baan ahay ilaa kaab Soomaali baan ahaa ma wax kale la igula dagaalamaya Soomaaliya xalayta wada la yaabanayden horta ma xogtaan idin siyaamso ilaa xalayta wixii igu socday baan idin sheegaa Soomaaliya rumaan idin sheegay horta intaasaan idin horeysiinaya marka koobaad horta waxaan halkan xaal ka bixinayaa xalayta beesha saacad ma soo dhan waan isku wada daray afkaygaan ku xaal baxaya waxaan leeyahay xaaliya apologies baan idin siiyey I'm so sorry waan ka xumahay inta adaan beeldan aflagaadeeyay laakiin se maxaa soo baa xaal dhariga maxaa karka ka keena kulaylka war ilaa maalintii aan wadaniyada ka hadlayay isku reer quraan isaysanaaba maaha isaaq oran maaha walaalayaal xog badan baan muhiim aan idin siin lahaa laakiin se inta yar waa inaan idin soo dhaca waxaan isaysan oo balniyo malacag baan isku leenahay waxba isku malihin in habar jeclaa baan ahay waa run Axmed Silaayo waa adeerkay Salmaan Gaalka meesha isaguna gulaha guurtida waa balmiyayga xigaan walaalayaal khaati bilaahi warsaaqay kala dhanba isma haysano saacad musuun baa qaaq meelaha inta iga soo fadhiistaan ay komen igu soo caayaan marka walaalayaal inta horta waxaan ka leeyahay waan ka xumahay xaal baan ka bixinayaa Soomaali igamay baranina qabiilaf lagaadeeyo iyagana waxaan leeyahay warnimo yahow intii niyo xumeed baa xagga sare soo martay goob baa tihiin dad wanaagsan baa tihiin
durriyadii baa tihiin laakiinse nimaga uu miidhiyiiba waxa idiin soo maray oo miidhiyihii soo galay dee intiinii xumayd baa miidhiyihii xagga sare soo martayba oo ay ka mid yihiin booba yuusuf ducaale cali guray allahu mustacaan ninkii xildhibaanka baarlamaanka isku sheegaya meelaha isagoo safraansan marba ummadda soomaaliyeed aflagaadanayay ee xildhibaan xasan cawaale inanka yaree qabyaaladaystaha ee abwaankaas ku sheega ee aan waxba samayn oqon hal abuurkana aan ahayn ilaahda laab saalax waan ogaa walaal run baan idiin sheegayaa mid yaroo adhiga sacuudi ku raaci jiray oo ilaa hooyaday caayiyey horta dee haddii anigay caayi lahaan ragnimi ahalay wallahi inaana waxba odhan lahayn in badanna wuxuu ku soo celinayay sida qur-aanka intaaba wanaarkay inuu hooyaday caayo cabdisalaan hooyadii daami bay ka dawrsataa subxaan allah war ma anigaa hooyaday dawrsataa oo sotaa hooyaday guriga filadaa ku jirtee calaamadaha hargeysa hotel star dabadiisa markaa walaal marka dagaal lagugu soo qaado umaladoox dee waxaad goor waad islaaweysaa xaal baan horta intaa ka bixinaya sacad musane waxaan leeyahay dad wanaagsan iyo dad xunba waa leedihiin laakiinse walaalayaal tol baynu nahay waynu isgaranaynaa nima reer shaqsxaaqa baynu nahay intii nin xumayd baa xagga sare soo martay qadiyadana igama lihidin anigu dee qadiyadan maxaynu isku haysanaa soomaali baan ahay soomaalinimadaan ka hadlaa soomaalinimadaan jecelahay calankaasaan jecelahay talabaad xuquuqdeennaa baan u doodaaba war amxaaradanina qabsanaysa iyo soomaalidana laga kaxaynaya baan anigu la soo taaganahay waxayna anfacaysa soomaalinimo amxaarkan wuxuu inaga faa'iidaysanayaa markaynu dhahno amxaarka walaalanimaniin amxaarnayna ma jecla soomaalina ma kala jecla dhammaantood soomaali oo dhan ama koonfur ha noqoto run baan idin sheegaya soomaaliya qabiilkaa doontaan sheegta ama hawiye sheegta ama daarood sheegta ama isaa sheegta ama ciise sheegta ama samaroon sheegta ama dir sheegta qabiilkaa doontaan ahaada anigu horta nin kastoo qabiiliya aniga ka qola adag wallahi inaanan qabiil soomaaliyeed macaal isaaqa ilaa xalaytana waxa igu socday telefoon run baan idin sheegayaa telefoonkaygii kale halkaas xitaa haddaad iga soo garaacdaan wuu xidhan yahayba burcu igaga socdaa telefoonku wuxuu igaga socday ingiriisku igaga socdaa faransiiska gudihiisu igaga socdaa walaalada iyo tolkaybu igaga socdaa ummadda o dhan bu igaga socdaa reer baadaa falagaadaysa dee iga daaya haddaba idinkuna dagaalka yaree hoose cidee ku dagaalankaa iga daaya ilaan maxaynu isku leenahay aniguba nin reer shaqsxaaq oo deegaankaa togdheer ka soo jeeda baanoo haddaan qadiyadan diiday oo anigu ima anfacayso anigoo qudhana ma qabo fikradan rag fara badan ayaa ila qaba in aan soomaalinimadu ayna anfacayso oo aan somalilan iyo kalago iyo waxaasu aanayna anfacayn markaa walaalayaal maxaa mucjisada kale dhacday mid baa ila soo hadlaya waa odayaal waaweyn caaqile iska dhigayaan salaadiin bay iska dhigayaan waxba halkan ka carabaabi maayo waxay odhanayaan cabdisalaanow warniyow maxaa reerka kugu taxaamay nin habar jeclaa baa tahay innagaa meesha haysana silaayin waa adeerka saleebaangaal waa adeerka nimanka sacad muuse jeegaan baynu isku ahay dee idinkaa waxaa laydin idhaahdaa anigu waxaa mayihiye faransiiskan joogaa soomaalinimaan garanayaa soomaalinimaan ku dhashay halkan soomaalinimaan xuquuqdeeda kaga qaataa calankaasaan leeyahay shiswi soomaali baan dhahaa markaan faransiiska la joogo meelaha kale markaan tagaan from somaali waxaas oo dhan walaal dee aniga shaqay taalo maaha nimankaa markaad dhegaysatid warniyo mooyaho walaal soomaaliya rumaan idin sheegaya walaa inaan beenalkaa la soo fadhiisay dhiikarbaabay qaadsiin gaadhin waad dhegaysanaysaa haya adeer aabbaha cabdi aadan buu ahaa cabdi aadan maxamed cali rabaan nin habar jeclaan reer daahira baad ahayd reerkeennu fariiday ahaayeen maynaan jabi jir oya igu cadow anigu cadowgayga waan garanayaa cadowgaygu waa amxaare ma soomaali baa cadow igu ah soomaaligan aad leedahay waa igu cadow goormuu cadow igu noqday soomaaliya dowladdii maxamed siyaad bareen wax ka tirsanay waynu kala calaf qaadnay waynu la dagaalanay siyaad barre dowladdiisuna soomaali oo dhan baa la socotay goormaan markaa anigu aan wax kale maxaa sameeyey maxaa laygu haystaaye 24 saacadood ilaa hooyada loo aflagaadeynaya ilaa ummadayda war aniga iyo caaya cabdisalaan ahaan shakhsiyadeeda waxaa doontaan ka sheega sheekooyinka khaldana laydin dhiibaya leeyahay gabadh baa sidana naag war ciyaal ilaahay allah raxmaanka waan weydiisanaya weli carruur maan dhalin gabadhan iyo waxana waa deeska waa wax iska caadiya dumarka waana la furaa waana kala tagaa waxaan meel kastaba maastarka waxaan u daayay ummadda ilaahay loo xidhiidhi waayo waa iyaga iyo qayladooda iyo caydooda iyo mid kuwa awoowa waa la seero sheekaysanaysaa kadibna wuxuu ku odhanayaa waa qabyaalaystayaa way tukadaan waxaan ku dhahdaa war waa tukataan maxaa qaxoontiga idinka dhigay maxaa ingiriiskana idin keenay maxaa jarmal idin keenay maxaa australia idin keenay maxaa soomaali baynu ahaynoo soomaalinimaynu sharaf ku lahaynay miyaynu soo taariibi jirno maxaa hableheennii soo tahriibiyey dumarkeenni iyo haweenkeenni iyo cawradeenni soo kuwan badaa ku daadanaya war ma intaasaad aniga intaasaan walal khaati war inaga daaya baan hadda soo kordhanaya aakhirka maya reerkeennaasaas aniga xaaliga ma bixin kartaan waxba aniga ama ingiriis ku shira ama samada ku shira ama sacad muuse anaa afkayga ku xaal baxaya waa sacad muuse oo xaal baan idin siiyey intiina wanaagsan inta xun ee isaaq oo dhanna dee waanu saynaa fikraddan isku haynaana
wax kale ma aha bukaan socodkana waxaan leeyahay welcome soo dhawaada halkaasana intaada kaga baxaya walaalayaal waa intii xalayto aan dabcan ciyaal yar ruux xanuunsanayo meelaha igu soo qorayna waa arkay xaal baanu kala bixinaynaa sida aniga waxba igama bixin kartaan anaa afkay ku xalan baxaya haddaba walaal waxaan idiin soo gudbinayaa maanta iyo baarlamaanka iyo imaaraadka horta marka koobaad ilaa maalintii dowladdii soomaaliya inaga burburtay su-aal baan idin weydiinayaa soomaaliya carabi maxayna inoo qabatay carab wax inoo qabatay ama waqooyi ha noqoto ama bari ha noqoto ama koonfur ha noqotee waynu burburnay islaam baynu wada sheeganaa dabcan waa islaam inamal mu'minuuna ikhwa ilaahay baa yidhi soomaalidu islaamku waa walaalo waa sax carab laakiinse wax aan lugooye ahayn miyay inoo geysatay miyay inoo soo gurmadeen reer galbeedkan iyo yurubiyaankan baaba ilaahay inoo sakhirayo milyani soomaaliya maraykan iyo yurub ayaaba magangeliyey oo innaga dabcan dee kuween waddankii kaga nimi waxaynu ku masruufnaa waxyaabaha yaree aynu ka helno yurubiyaankan iyo maraykan ee carabi maxayna tartay xaggayse iminka inagala qaaden ma carab horta soomaaliya midna waan idin sheegayaa maxaa carabina jeclaysiiyey maxaa inaga iskaga nacsiiyey waxaynu nahay soomaaliya dad iyaguna isneceb adduunkuna u necebi inaguna isma jeclinoo soomaalinimadii ismayna buuxinayno islaamnayna ma jecla carab baanayna jeclayn amxaaraanayna jeclayn bal amxaare waabaynu ogeynoo dee ilaa qarnigii 15 ilaa axmed guray col baynu ahayn ilaa sayidkii ilaa imikada amxaare waynu daba socotaa laakiin wixiiba waxayna gaga daray shirkad yaroo DPO la yidhaahdo imaaraada dekada barbaraan xoog idinka siinaya in badan baana ka qeyliyey waan isku maandhaafnaa reer hargeysa iyo burcayo iyagu waxay kodhanayaan horumar beec noo keeneen wax allaala wax horumara oo ay dekadii barbare kusoo kordhiyeen inay dibudhac ku kordhiyeen mooyaane ma jirto kow horta iyaga oon casriyeyn oo aan marka hore waxay dhahaan waanu casriyeynanaa heshiis khaladaba xitaa la galeen maamulka hargeysa iyo dee baarlamaanka iyo waxa ay dhex mariyeen iyaga oon casriyeyn bay dekadii la wareegeen nasiib darrada jirta dakhligay ka soo baxayay dekadeenii berbere iyo hantideenii bay maanta inala leeyihin oo carabi inala yeelatay oo ay inala yeesheen nimanka la yidhaahdo DPO leyna imaaraadka ee khamiisada inoo soo xidhay marka horena soomaaliya waxaa laydinku khaldaa khamiiska waxa la yidhahdo horta khamiiskan walaalayaal waa dhaqan carbeed ma aha diinta islaamka meel laba khamiiskani kama soo galaba diinta islaamka wax 5 rugniba u ah rugniyo oo dee salaada soonta waynu garanaynaa xajka oo la aado laakiinse khamiiskan yar ee lagu khaldaya carabi inoo soo xirtay odhana waa muslim maxay walaalayaal dekadii iyagoon casriyeyn bay la wareegeen shaqa dhimis bay sameeyeen marka hore waxay lahayn shaqaanu kordhinayna dadkii ku dhintay ee ku dhaawacmay iyo kuwii ku dhintay waxa maysin sixir barar bay soo kordhiyeen oo 5 galabnimoba berbere iyo hargeysa inta sidaa loogu sii daayay lacagtii ay ka soo baxday dee dekada ay dollarkii qaadanayaan oo Dubai bay laadayaan oo wadankii ilaan walaal Soomaali waa isku mid berberena waa magaaladeennii imikana waxay ku soo socdaan meesha la yiraahdo Boosaaso Cabdiwali Gaas bay isaga heshiis la galeen oo ay doonayaan inay dekada Boosaaso tii berbere ay ka sameeyeen oo kale waayo humaag bay noo soo wareen iyo imagination khaldan oo wax alaala waxaan horumar ahayn Soomaaliya runna waan idin sheegaya amxaarka waxa inaga xun nimanayna la Soomaaliya isku afaynu ku hadal waa nimanka maamul goboleedada horbooda ee madaxweynayaasha iska dhiga wadalkiisan shalayto ninka la yiraahdo xaaf wuxuu ku hadlay hargeysa wuxuu taa soo maray kuwan way wada shaqeynayaan markuu baxay bay ku hargeysa waxay yiraahdeen imuu soo marin xaaf hargeyso hadda waanu garanaynaa xogtii baanu haynaa xilgo horboodka berbere soo degay baan ogeyn inuu habeennimadii hargeysa seexday baan ognahay dadkana ay waalaane ay afduubeen dee reer shaqo saxaaqay dadkayga wanaagsan aan walaalaanahay waliba reer shaqo saxaaq oo dhan maahay dee la ciisay la samaroon dadka la godoomiyey ee Soomaalinimada inta laga kaxeeyay lagu shaqaysanaya kooxda gaarka ah ee calooshooda shaqaystayaasha warumaan idin sheegaya horta nimanka iga soo caban doonay hadhow dhan doona Cabdisalaam wuxuu necib yahay reer shaqo saxaaq Soomaaliland warwaan jecelahay dadkayga wanaagoodan jecelahay laakiin bal kala saara anigu shakhsiyaad baan saynaayo fikrad isma hayno Saacad Muuse isma hayno habar jecel isma hayno garxaj isma hayno arab isma hayno ayub isma hayno laakiin se walaalayaal war maxaad ka balcadiga dhigay haddaan ka hadlo Axmed Silaaye iyo kooxdan maafiyada ay wax afduubtay maxaa la soo aflagaadeynaya leecaya de waa runtu waxa weeyaan nimankani waxbay isloogiin way wada shaqaystaan maamul goboleed oo dhan wada shaqaystaan ninka la yiraahdo Cabdiwali Gaas waxay isugu tagaan imaaraadka ee meelaha
bal inaan rubaan dul istaagi doonaa maalintan dhaweyda ee dhammaan maamul goboleedada oo dhan intay inoogu dhunteen xaj baan aadayna warna nimanku maana ilaahay ka baqanayn ee ay Dubai isugu tageen Muuse Bixna walaahi u joog oo kaxeeyay oo wakiil ka ahaa ninka yar la yiraahdo Baasha Morgan reer waqooyina waxaan leeyahay reer waqooyi oo dhan ma ahaydee qolyaha yiraahda waxbaan kala dooranayna saddexdan inay maadeer ka tartansiinay warnimay ah wadani doorto waan idin sababeynaya hadhow odhan doontaan wadani wuxuu ku taageeraya waa abtiyaashi waa habarin iskuma taageerayo anigu qofkan isku qadiyad noqona baan taageera maxaa farmaajo isku reer baan nahay waxaan ku taageeraya Soomaalinimada calankaasaan ku taageeraya waxaan ku leeyahay doorta ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cirro iyo xisbiga wadani sabab waan idin sababeynaya sababtaan uga doortay ucid Faysal Cali Waraab isagu waa si kulmiye iyo kulmiye horta kulmiye waa kii markii horeba joogay waa kii dekedan wareejiyay ilan isbedel baad ka hadlaysaana dadku maskaxdiina furta we need a change baa leedin isbedel ma kii hore u joogay baad markaa isla isagiin baad wax ku bedelaysaa soo marka la rabo inuu isbedel dhaco soo in wax kale oo cusub meesha yimaadaan ma dee nimankan walaal kulmiye waa kuwa waxaan oo dhan sameynayay wadani waxaan ku taageeray haddaba oo aan ugu qanacay fikradooda kollayba Soomaali way israacaysaa horta Soomaalinimo isagoo wax ka sheegaya Cabdiraxmaan Cirro oo le Soomaali baan alaysay Soomaali baan ugu cadawa never qofka lama ribeeyo wali ma arag waana siyaasi wax badan fahmi karaya Soomaalinimada garan kara talabaad xisbiga wadani la yiraahdo waxa uu eedameesha ka jira Hargeysa iyo Burcayo walaaliga ma aha Soomaaliland iyo waxa maanta ma aanu Soomaalinimada amisanahay laakiin de mas'alaadka guud ee saameynaya waa inaan ka hadla maadaama nin Soomaaliyeed oo Burcayo soo jeeda oo Soomaali ah waxaan ku taageeray dekada berbere wareejinteedii raali kamay ahayn markii dama waaba lagu khasbay oo khasab baa laga dhigay raali kamay ahayn sababta the reason why aan u taageerano waa taa waayo hantidii qaranka Soomaaliyeed ka dhaxaysay ee dekada berbere ee DP World ay nagala wareegtay Ethiopia 19% ay ku yeelatay imika ay soo baxayaan 40 baleedahayba ee xitaa wax faa'iido naga soo galayaan jirin xitaa gawaadhida amxaarada berbere marayo laamigeera way ka burburiyeen gabiile iyo wajaala iyo Hargeysa mar jiro baala amxaarada leedahay gawaadhiyo waxa ku saaw cabaadayba marayaba waa sababtaas aan ku taageeray taas waa ta maanta hadaba Soomaaliya maxaa looga baahan walaalayaal dhamaan barnaamijkan oo share garaya Soomaalinimaduna hayna shaqayso xildhibaanadeeni maanta baarlamaanka majority-gooda horta waxa jira rag fara badan oo daaha dabadiisa ku jira oo marka mooshinka la soo dhigayo insha Allah taala soo bixi doona hadda se tiradooda waxay maraysaa inta mooshinka soo propose gareeyay ee soo dhigaya waxay marayaan 450 bay marayaan mooshinkaas wuu shaqeynaya waana la soo dhigaya dawladdu in badan bay dul qaadanaysay saasay u daawanaysay intii maamul goboleedadu ay isaga daba tegayeen meesha la hadlay Imaaraadka iyo Dubai dawladdu way daawanaysay way iska aamusnayd way eegaysay laakiin Soomaaliya seeflaboodaad leedihiin dawladdan waxyaabo badan oo ay ku guuleysatay baa jira in la dumiyaaba la doonayo xitaa arrinkii qalbi dhagax oo xukuumadan ninka xukuumadda la dagaalamaya hays odhanina farmaajo la dagaalamaya hays odhanina khayru la dagaalamaya wuxuu la dagaalamayaa horumarka iyo Soomaalinimadu la dagaalamaya wuxuu la dagaalamayaa dareenka shacabka Soomaaliyeed wuxuu la dagaalamayaa farxadeeni rabitaankeeni waynu ku wada faraxnay runtii nin wadaniyo Soomaaliyeed buu ahaa waxaana la dagaalamaya maamul goboleed oo dhan Imaaraadka imka soo raacay Sacuudigii amxaarada marka horeba iyagu cadaawad guunayn oo qaba oo aan Soomaali marnaba kala jeclayn marka walaalayaal berber istaaga billahi calaykum berber istaaga oo maanta baarlamaanka gartay inay u adkeysan kari waayeen waxyaabaha faragelinta interferka tooska war carab ma nibin waynu jecelnahay laakiin se waxaynu noqonay Soomaaliya hilib baylaha baynu noqonay waana laga wada faa'iideysanaya carab baa inaga faa'iideysanaysa amxaar talabaad qabyaalad baa lagu mashquuliyay wadarkaysan sharata xaafuxu ku hadlay reer galmudug kala ma jirto wuxuu buu arrinkiis anaad la yaabaysan yaa habar gidiraay bay waxaana lagu bal muxuu habar gidir taraya muxuu hawiyo u taraya muxuu Soomaali u taraya waa laaluush qaatay hantidiisii lagu laaluushay oo leeyahay Soomaalinimadii baa laga laaluushayaa maxay noo soo wada dekadii berbere saasay ku sameeyeen waxa ku xigaysa boosaas waxa ku xigaysa meesha aad marka kismaayo ku xigaysa waxana way nagu soconaya 450 xildhibaan baa xoguhu igu soo gaadhaya inay maanta proposalka ay diyaar u yihiin nimanka marka proposalka baarlamaanka la soo dhigana Soomaaliya niyad jabina dawladdiina taageera baarlamaanka marka la soo dhigo inta kale oo dhan way taageeri doonaan arrinkaasuna uu meel maraya waa xaqiiq maanta Soomaalinimadu way shaqaynaysaa Soomaali way saraacday
ummadii way soo jeesatay soomaalinimada wayna shaqanaysa kuwa kale ee yara baqanayaan waxay ka yara baqanayaan sidaan la wada soconno dee imaaraadka in badan baynu ganacsi iyo waxyaaba noocaas hantidoodii baa tahaa niman fara badan oo xildhibaana oo 4 iyo 50 way ka badan lahaayeen kuwa kale waxa yaala hantidoodii baa taala dubay ganacsi bay ku leeyihiin intaasay ka yara baqanayaan laakiin marka la soo dhigo mooshinka ka dhanka imaaraadkana duulaan kuma lihin imaaraadku hantidee sovereignty-geennii iyo soomaalinimadeennii ayuu soo dhex galay waayo dekedaheennii baa iyagoon dowladdii ixtiraamayn iyagoon soomaalinimadii sharaf u hayn ayay dekedaheennii ay la wareegayaan sidoo kale waxa ku hoos jira hadhayalsanina war soomaaliya toosoo kaca bilaa calaykum kaca oo qabyaalada iska daayaya qurun waxa ku hoos jira saldhigii xumaa ee lahaayeen berbere ee fusuqa carabtu ay rabeen inay noola yimaadaan ayaa isagana meesha ka bixi doona heshiisyadii ay berbere la galeen ee lahaayeen berberenu kula wareegaynaa baa meesha ka bixi doona kan ay boosaasa ku soo socdaan baanme ayaa isaguna meesha ka bixi doona war sirma qabiila allahu saana ilaahay bayna badbaadinaya soomaaliyay carab iyo imaaraad waxba inooma soo wadaan wax horumar inooma keenayaan amxaara iyaga inaga xun dowladnimadiina berber istaaga yaanu idinku dirin nin jawaasiisa oo isagu kaba xanaaqa cadowgeena koobaadna waxa weeyaan maamul goboleedadiina arrinka ku soo socda haddii aad ogtihiin wallaahi waad farxi doontaan dowladnimada ha niyad jibina war dowladnimada taageera soomaaliya war qarannimeen wax ku noqon karnaa war waxba kuma noqon karna qabiilkaygaa maanta ay haystee meel kasta iga soo aflagaadeynaya ayaa qabiilnimo wax ku noqon lahaa isaaq baa halkaa 27 sannadood qaaq isaaq waa dad wanaagsan yaana dadka isku darin dadka shacabka waa dad fiican waa dad nabad jecel waa dad goba laakiin hogaankii baa ka xumaaday niman maafiya oo bilaa arxana oo aan cid u naxin baa walaal hogaankii u qabtay wallaahi baalashka waxa lagu leeyahay maanta burco 1,000 shilin buu marayaa laanka lacagta ay ku sheegaan sixir barku halkii ugu dambeysay ka hadli maayaan orolaabay iskaga jiraan kulmiye intii lacagtii ummadda soo qaateen ay meel kastaba ku jiirayaan sixir bar baanay ka hadlayn deegaankii baanay ka hadlaynin ummadda dhibaatada haystaanay ka hadlaynin qofkii hadlana waxay odhanayaan halla caayo halla aflagaadee ummadiina dee waxay u samaysteen ciidan aaran ayuu yidhahdo amxaarada u shaqeeyaba oo qofka dhiig leeya hadlaba waxay odhanayaan xabsiga ha lagu tuuro halla xidho ama shiikh ha noqdo ama shariif ha noqdo qofkii yara dhiidhiyaba markaa walaalayaal dadkii dad wanaagsan bay ahaayeen dadkii maanta halkaa cunaha lahay war soomaaliyey maanta waxaan halkaa soo dhigayey diyaaradihii Somali Airline war markii aanu qaranka ahay macaal isaaqow macaal hawiyow macaal nimanka yidhaahdo daaroodow intiina idinkuna qabyaalada aaminsan ilan kolleyba soomaaliba noo qabyaalada naga dhammaan mayse war maanta reerkeebaa diyaaradale ma puntland baa diyaaradale ma somaliland baa diyaaradale ama xaaro oo cadowgeennaa baynu diyaaradahooda soo raacna diyaaradahoodan weliba barinaa oo suntiina lagula dagaalamayaba aynu nahnaa Ethiopian Airline waxyaaba noocaas Somali Airline waxay maanta xoog baan akhrisanay afrikaan horumarkaas sameyn oo diyaaradaha sameyn baynu diyaaradaha aynu lahayn maantana Frankfurt iyo Jarmalka dadka ugu badan ee qaxoontiga waxay ka soo jeedaan oo waliba dhawaan soo galay meesha la yiraahdo Burco iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo Garowe labada maamul ee iyaguna dee dabarka ku noqday Soomaalinimadaba ayay ka soo jeedaan iyagoo qaxoontiga sharaf baa lagu yimin jiray oo Frankfurt bay diyaaradaha ka soo degi jireen fanaaniinteena ka wareysta iyo Soomaalida saxnaayad ciyaaro halkaasaynu marin yaa waxa burburiyay haba burburiyo siyaad baraha la dagaalamay maxay noogu bedelay zero waxba bay noogu bedelinba markaad walaalka qabyaalad ku difaacaysid ee adiguna halka qabyaalada soo taagantaad aniga ay haystaan ku leeyahay war anigu ninkaas ku cadowa ama xaarkaba waxa kaaga xun kuwii Soomaaliya burburiyay wali weynu madaxaynu ku sidanaa anigoo cabsanaan oo iska miskiin oo ala ka qaylanayna ilaa hooyadii baad aflagaadeynaysaa markaad wax kastaba soo dhaaftay kii waxa soo dhan baabiyay ee qarannimadii baabiyay ee Soomaalinimadii baabiyana qabyaalada ku difaacaysa waxaanaysa waa libaaxo waasna waa mujaahido warma Soomaali nin baabiyay oo sharaftii Soomaaliyeed karaamadii Soomaaliyeed hablii Soomaaliyeed hableheenan xitaa leenahay shabeekiyaa bay raaceen waxa raaceen ma ina Soomaaliyeed ba iyadoo aan muxram lahayn oo bilaa sharafa qurbaha iyo Sacuudigan iyo badan Liibiya iyo Yurub inay jirtay inanta Soomaaliyeed oo sharaf leh ay haday jaamacad u baxayso baasaboorkeeda ku duuli jirtay haday shaqaadayso iyadoo macal muxramkeeda wata ay baasaboorkeeda ku duuli jirtay si gobanimo leh oo sharaf loo inanta Soomaaliyeed qaalibe oo inaan la jecel yahay dunidu jecel yihiin oo hablaha quruxda badan ee East Africa Soomaaliyeed hablii goobta maanta yaa jibiyay kaasaa jibiyay
bal siyaad barra way nagu dareen walaalayaal Soomaaliya waxay nagu dhaadeen siyaad barra waa dictator waa nin xun waa sidan okay oo caqligiina ma siyaad barra markaa raacay siyaad barra dhimay baa kaba baxo meesha maxaad idinku noogu bedeshay SNMA maxaad noogu bedeshay UNCA maxaad noogu bedeshay ma waxaan qabyaalad ahayn ma inay reeraynu noqono isaaqnaa ka yiraahdo Soomaaliland baan la yiraahdaa qaar kale galmudug baan la yiraahdaa kuwan ma jartan yiraahdaan Puntland baan la yiraahdaa ma waxaan ay bawlna lagu bedelay maanta hadaba Soomaaliya waxaan looga baahan yahay inta caafimaadka qabta inaan waxa intaan meel iska dhigno aynu sharafteena ilaashano inaanu baarlamaanka barbar istaagno inaanu xukuumadeena taageerno inaanu dawladnimadeena ilaashano waxaan kaloo idin hayaa warbixin ku saabsan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre رئيس الوزراء حسن علي خير الله كرامه مدحده waa loo duceeyayo walaal madaxda lama caayo waayo qaranka Soomaaliyeed buu ra'iisul wasaaraha uma aha reer waa inagu reer war Soomaaliya hormaysu sheegnaa madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed waa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha qarankuna waa Khayre waxaan kala dhan waa caaqil iyo reer yar oo qoon bay isku soo talabaad walaal wax iga daadegila oo saanay oo talo mararka qaar warniyo maadiga waalan ma dadkan meed warnin aqoon-yahana baad arkaysaa oo jaamacad soo bartay oo waxbarasho la baray oo waxaan ku salaada tukanaya reer buu aaminsan wuxuu kula dagaalamaya isaaq baynu nahay Soomaaliland baynu leenahay war aqoontaadi meeday maxaa aqoontii helay mid kale aad arkaysaayo aqoon-yahan oo waxbarto wuxuu ku oranaya Puntland baan la yiraahdaa Soomaaliland maxaa naga galay mid kale oo aqoon-yahan baad arkaysaayo waxbarto wuxuu ku oranaya aniga galmudug baan warnimada la falay Soomaaliya miyeenu walaal afar ilaa tag saacad kama seexdo walaal rumaan sheego xsaab warniyo talo dadkii miyaa la falay miyaa la waalay warninkana soo kan wax bartay soo kan wax aqoon tale soo kan dunidii uu arkaya maxaa reerka ku soo koobay ila waxan uu reeraysiye ma qabiil baa qaran noqon karaya qarannimadu waa markaynu ahayn waa markaynu diyaaradaha lahayn Somali Airline waa markii safaaradaheenu dibadda ka shaqeynayeen ninka la yiraahdo Bacalwaa ayaan waa ku kulanay fanaanka ahaan jiray Jarmalka kadibna wuxuu noo sheegay isaga iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isna uu qoy ka soo jeeday mar ee ugu dambeeyay loo jiray Umar Cabdi Qali iyagoo wada socdo bay Jarmalka yimaadeen check baan wax ku iibsan jirnay mid wallahi la isgaar ra'iisul wasaaraha qora check ayar balood macaayla meelaha yar ee cafeteria-da kabaablayaasha meesha wax ka cunaan check-aas wuxuu ka soo baxay safaaradii Soomaaliya ee markaa waxay kala ahaayeen Jarmalka bari iyo Jarmalka galbeed oo saxeexan check-aar buu dhiibaayo alaabtana la siyaabo kuleeyo halka maantana waxa lagu oranayaa failed state refugee asylum seeker walaal bal inta halka ilaa digriga aynu dhulka galnay daya ummadihii aynu ka horeynay Afrikaankii aynu ka horeynay ee iyagoo aan waxba ahaynayno xadaarada ka hor ay maanta aynu iyaga caafimaad ku dooranayna Ethiopia aadayna maxay ahayd waxa la yiraahdo MRI-gi iskaankii bin Ethiopia aadayna Kenya aadayna waxbarashada aadayna waxa soo dhan Muqdisho loo yimin jiray Soomaaliya loo yimin jiray maantana nid baa qabyaalad idinku koobay soo kornaya xaafo kale kacay reer hebelow kacay habal gidiray kacay silay halka soo istaagay musabbix xornay isaaqow kacay Abdul Gaasbadan ku ma jeerteen baawal war nimankan iyaga danaysta anigu walaal reer war daarood ma nibci isaaq ma nibci hawiye ma nibci wax oo dhan waan jecelahay Soomaalinimada ka fikraa Soomaalinimada jecelahay taasaana inaanfacayso dhammaan Soomaalinimada warniyo isweydiiya bal iminka diyaaradaha soo qura isweydiiya reerkeeba diyaarad leh waxay ku soo raacayaan Ethiopian Airlines inuu cadow banahay inaga ay diyaarad lahayn inaga miig lahayn inaga qaran ahayn oo Afrikaan kale inaga waxbarashada soo doonan jiray xitaa kuwa maxaarada ay aan waxba ahayn tagrayga ay maanta inaga maalka dhacay ilaa melaskoodii melas mission ee Soomaaliya wixii lagu kala qaybinayay Muqdisho joogi jiray Muqdisho ay wax ka baran jireen caafimaadka halkaas u iman jireen waxbarashada halkaas u iman jireen way imanaysaa hadeen wallahi qabyaalada iska dhaafno oo dawladnimada ilaan walaalayaal dawladnimadu way farabadan maxaa madaxweynaha tusay maxaa ra'iisul wasaaraha tusay dawladnimada ma kursigu ma Soomaali oo dhan iyo qabiiladooda oo dhan buu qaybsanaya nin baa ku fadhiisanaya ninkii ilaahay uu calfuun baa ku fadhiisanaya Soomaalinimada ka sharaf badan waa shaqo tagaysa wasaaradii Soomaalinimadina walaal waxa la dagaalamaya Soomaali balqaybta ilaahay cadawgii dibadda waxay naga xun Soomaali gudaha oo reer hebel oo maamul waa ka qaab ka soo lahaa airport ka Hargeysa ee waliba sloogayna halka wax ka sabaabulay reerkayga oo kaca waani lagu soo duulay wariya ku soo duulay dawladda yar ee masaakiinta ay imika inoo timeen imika wadaniinta ayaa ummadda ku diraysayo adiga imaaraadka 50 milyan ka soo qaatay waxaan ognay musabbixi ninka la yiraahdo oo de isaga la soo ciyaarsiinayo isleen mala madaxweynaha mustaqbalka noqdo xaaf
cabdiweli gaas intuba waxay isaga daba noqonayeen imaaraadka lacag baa la soo siinayay lacagtaa waxaa loo siinayay inay soomaalinimo kula dagaalamaan inay dowladdaa yare farmaajo iyo khayree rajadaa yar ay kula dagaalamaan in aan soomaaliba dhaqaaqinba warnimee maxay faa'iidayaan aday kula ta labaad maxay ku siiyaan bal adigana waa taageeraysaayoo reernimaad ku taageeraysaayoo way barbar taagan tahay waynu is wada garanaynaa wada qaxoontinayno waa innaga meelaha hadda caalbasarka ay dhibaataysanay nimankani maxayna taraan hooyooyinkeen maxay taraan maatadeenna maxay taraan ilaan dadkeenna xaggaasay wada joogaan waa kuwa shaqala-aanta meelaha u fadhiya waa kuwa dulmiga lagu hayay amxaaradu ku gumaadayso gobolka gedo ee ku gumaadayso baydhabo ee ay waqooyi kusoo galayaan ee wajaana markay doonaan ku laynayaan ee ay durugsi ku laynayaan warnimo maxaa damiirka helay dadnimadii maxaa helay maxaa inaga iskeen tusayun sootan maaha cadow baynu leenahay cadowgeenu maanta oo dhan baa walal wax laygu lahaa cabdisalaano soomaalinimada maxaad ku falaysaa dee soomaali baan bal ilaah baan idinku dhaarsho soomaaliya damiirkii soomaalidu halku marayo waxay ku leeyihin nimankan reer hebel maxaad ku caayaysaa maxaad musabixi ku caayaysaa maxaad soomaalinimada ka faa'idaysa dee soomaali baan ahoo musabixi soomaalinimada hortaagay axmed silaayna soomaalinimada hortaagay anuu maanaa kala jecel waxaan oo dhan soomaalinimadii iyo sharaftii soomaaliyeed oo isu timaaday hortaagan yihiin ma hanti ay leeyihiin baan ku haystaa ma wax gaara baa naga dhexeeya soomaalinimadii aan wax ku noqonayeen sharaftii bay hortaagan yihiin ilaa kuwaa laga hor dhaqaajiyana soomaali waxba noqon mayso soomaaligaa la laynayana way ku faraxsan yihin warka geda lagu laynaya maanu lagu dilaya maxaa ku haystaa iyo kenyaanku maanu nin soomaaliya walaalkahay marka kaa la soo baabiyo adiguma nabad galaysa marka iminka reer geda iyo koonfur oo dhanba ama amisom iyo balaayadan iyo baaskan ay soo dhameeyaan hargeysa iyo burcamo ku nabad galaysa waa kanoo amxaar baa kula joogo talabaad walaal dulinimada kale nagu dhacday waxay ku odhanayaan oromada hala daayo oromadu waa muslim oromka balwaraysta wuxuu ku odhanayaa hargeysa anaga ahayn burca anaga ahayn haddana way korinayaan bal nin maskii cuniba lahaa korinayo hoosta ku haysta ka waran oo ku odhanaya maya beri buu sidano war ninkana ideology buu aaminsan yahay inuu burco iyo berbere iyo hargeysa uu isagu lahaa ninkana amxaarka walaalayaal markaa hala berber istaago maanta baarlamaankeenna aynu berber istaagno aynu dowladnimadeenna berber istaagno baarlamaankeennaasuna maanta dareenkii iyo caqligii baa shaqeeyey 450 baa mooshinkaa soo dhigay kuwa kalena way insha allahu tacaala way ku raaci doonaan waxaan kaloo halkan hambalyo aan uga dirayaa oo leeyahay allah ku karaameeyo allah ku sharfo warniyo talomaysta ninkaas oo kale noqdaan maamulka la yidhaahdo jubbaland maamul goboleedka jubbaland ninka ka madaxweynaha sheekh axmed madoobe oo gobonimadii gartay oo soomaalinimadii gartay oo dowladda go-aankeedii ku berber istaagay berina halaasay nin ragga baqaski waace war ninkaasuu ka soo dhex baxay wuxuu noqday iftiin ka soo dhex baxay maamul goboleedadii kaloo dhanba waayo dowladdu buu uga dambeynayaa galabtan hadal u leeyahy baan dhegaysanayey dee si sharaf labu u hadlay wuxuu ihi waar dowladda go-aanada siyaasadda ee arrimaha dibadda iyadaa ku shaqa leh dowladnimadaan uga dambaynayna waa runtii maxaa cabdiweli gaas waalay maxaa xaaf waalay maxaa sharaf sakiin waalay waxaan kaloo idin ogahay soomaaliyeed siyaasadda halkan ka sheegi maayo dowladda dabcan wax badan oo waxba idinma dheeri laakiin waxbaan ogahay nimankaa maanta halkaa ka qaylinaya ee dowladda dabarka u dhigaya war wallaahi dowladdana siyaasadda isticmaalayso miidaan fahmin masaakiin baad moodaysaan farmaajo iyo khayre way aamusay meen la hadlaan war siyaasad bay damacsay nimankan ma meesha laga dee ma sii sheegayaba laakiin siyaasad aad iyo aad soomaali u anfacaysa oo raganimo leh ayay oo samir badan oo dulqaad badan inagama caqli liitaan waxan way arkayaan waxan laakiin soo walaalayaal ha odhanina farmaajo muxuu maalin wuxuu wanaajin waayey muxuu qalbi dhagax u dhiibay muxuu waxaa u sameeyey war farmaajo iyo khayre meel 30 sannadood ka hor amxaare lagu soo hagay oo jawaasiistii ay ciiddaa ka badatay oo soomaalinimadii dhimatay oo siyaasi kastaa utuu dulli noqday haddaanu xil helin uu soomaalinimada odhanaya maxaa iga galay oo soomaalinimadii duminayo oo ay kuwaasu kow ka yihiin maamul goboleedada dubay isaga daba noqonayaan adiga mustaqbalkaa ka fikirayn ee aan soomaalinimo ka fikirayn baan la dagaalamaya farina keligeed fool ma dhabo waxaana dabcan berber istaaga xukuumadda waxaa lagula dagaalamaya shacabkaa ogolaaday waxay noqotay xukuumaddii koobaad iyo dowladdii koobaad ee dareenka shacabka la shaqaysa waa sababta ay nimankani ma ogola inaad wax noqotid soomaali inay horu marto ma ogola inaad kor in yar u yara dhaqaaqdid ma ogola madaxay kaaga taagan yihiin iyagu waa keligood noolayaa markaa walaal ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay aynu dowladnimada ilaashano qaar baa nagu soo caayon idhahda dowladda maxaad waada ayaanu taageerna calankaasaan taageersanay calankaasi sitaan sharaftii soomaaliyeed bay wadaan ma maamul goboleed baan taageera haddii maamul goboleed uu wax ii noqonayo uu xitarayo 720 sannadood bay burco iyo hargeysa nagu lahayn dowlad baad siinoo dowlad baad haysataan
maxaanu ka faa'iid ma waxaan qabyaalad ahayn ma waxaan dib u dhac ahayn ma waxaan dulinimo ahayn iga raali hada walaal waxaan idin soo gudbinayaa iyadana xog ku saabsan ra'iisul wasaare xasan cali khayre ra'iisul wasaare xasan cali khayre seen la wada soconaba wuxuu joogaa Mareykanka wana Soomaalidii way midowday waana israacday ummadda Soomaaliyeedna dawladnimada way doonayaan shacabkuna way daaleen run baan idin sheegayaa waxa ay Soomaalidu uga imanayeen ra'iisul wasaaraha ilaa Canada ilaa shalayto wuxuu isku dayay oo uu la kulmayay bulshada Soomaaliyeed isagoo qancinayo dhammaan caawada xitaa waxa Mareykan isugu yimi war xitaa nimankii social media ka hadli jiray ee dabcan ninka isagana lahaa duqbilow oo aan saaxiibkana aad iyo aad baan la uga salaamaya odayga la yiraahdo isaguna waa markuu doono wadani wani qaaliya dabcan ilaahay dee Soomaali oo dhan ilaahay wadani ka wada dhigo ummadda Soomaaliyeed ilaahay wadani ka wada dhigo dabcan sarba xitaa aan ogahay inuu joogo inay ra'iisul wasaaraha uu uga yimi isaguna state ka mid ah state-da Mareykanka ummadii oo dhan baa isugu timi halkaas ummadii ku qarcinaya bal halkeen ku aragnay nin madaxa goormayna ugu dambeysay oo shacabkiisa ay jecel yihiin oo shacabkii u waramaya oo qancinaya Canada Australia Mareykan meel kasta oo isaga yimaadeen ummadii halkaas ayuu ku qancinayaayo bulshadii uu dawlad u sheegay ileen bulshadii tashuush baa lagu furay ra'iisul wasaare inuu shaqeynaya madaxweynuhu uu shaqeynaya yaa ogol hadaba talabaad wala ninkan ku wareerinaya kooranaya maxaa uu ra'iisul wasaare waxa uu sameeyay sootan madaxtooyadii lagu soo koobay ee Muqdisho meel kastaba maamul yar oo kooban koox yar oo maamul ay qori la soo fadhiisteen sootan goboladii bari ee gobolka bari iyo gobolka Nugaalay qori la soo fadhiisteen koox gaar oo Cabdiweligaas hogaamiyo aan Soomaalinimada jecleen oo Soomaalinimada dooni iyagana ka sii daranba mararka qaar kun baan idin sheegay Soomaali war kuwan iyagu waabay badheersan yihiinba kuwan anaga naaftuubtay ee godoomiyey ee Hargeysa iyo Burco iyo Boorame godoonka galiyay kuwan kale laba wajilaasha mid arkin ay dadku reernimada ku difaacaysan ee adiga kula dagaalamaya marna oranaya okay federal baan nahay horta federalism kaasuna waynu ka bixi doonaa insha Allah taala ma fiicna waaba qabyaaladba kuwan uu kooda ka yahay Sharif Sakiin xaaf ninka la yiraahdo Cabdiweligaas waa suntii adiga lagu dilay noocaas taageer samsoonaysa Soomaalinimaduna insha Allah taala war wadankan laga qaadan maayo hadii laga qaadanayo horaan laga qaadan lahaa Soomaalinimadu way shaqeyn doontaa waxaanina suntanina way naga dhex bixi doonaan insha Allah taala waayo waa suntii halka 27 sanadoodina dhigay waa kuwii dawladda waxay ka soo tala qaataan oo ay ku xidhan yihiin dhamaantoodba waxa maamul goboleedada kuwii Soomaaliya burburiyay kuwii qoxontiga ka dhigay kuwii sharaftii Soomaaliya ku ciyaaray kuwaas ay ka soo tala qaataan marka waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaya hana loo duceeyo walaalayaal baarlamaankan waxaan leeyahay war inta lacag la idin siiyo oo imaaraadkiina soo hadlay Sacuudigii ha ka baydhina dariiqan aad maanta ku taagantiin mooshinkiina wuxuu saameyn doonaa min waqooyi from Ras Kamboni to Ras Casayr ayuu saameyn doonaa markaad raganimo muujisaan xin iyo dugsada ha qaadanina lacag ha la xidhina imaaraadka Sacuudi ha la xidhina sharafta Soomaaliyeed badbaadiya waxaan si gaar ah u salaamayaa xildhibaanka la xidhiban Sakariya wadaniga iyo dhammaan xildhibaanada wadaniinta way jiraan rag fara badan dhammaantina rumaan idin sheegay Soomaaliya maanta arrinkaas isku fadhiya xitaa xildhibaanadii kale ee xildhibaanada xitaa aamusan aydan arkeen way taageersiin dib u yara fadhiyaan hadhow marka meesha la soo dhigun bay daaha dabadiisa laakiin nimanka 450ka waa niman waa geesiin Soomaaliyeed waa niman halka banaanka xiniyoodii soo dhigay oo iscadeeyba 450 ma ku seexano mooshinkaas soo dhigay mooshinkaas wuxuu saameynayaa heshiiskii degada Berbera ee beenbeentana lagu wareegay ee ummadda lagu khiyaameeyay ee dib u dhac ahaa iyagoo dekada wax ku kordhin waxba uu qabanin ayaa imaaraadku inala yeesheenba oo ay lacagteen dekedeena iyo hantideena inala yeesheen am xaaranayno hoos galiyay wuxuu kaloo saameynayaa saldhigay lahaayeen imaaraadku Berbera ay ka sameysanayaa wuxuu kaloo saameynayaa boosaaso deeqa meesha ku dhaay Soomaali u irmaan horta meesha la hada boosaaso rumaan idin sheegay Soomaali wardee dekada uu wada leenahay hantina uu wada leenahay waa meesha kaliya ee ilaa wajaale Hargeysa Burco Berbera alaabta bagashka ugu soo degto koonfurta Soomaaliya ka dalig way ka saameyn badanaysaa Berbera way Berbera cashuurta awal horeba la kiciyay awal horeba meesha Berbera la yiraahdo wallahi dardaarankayga meel ku qorta dekada Berbera marka horeba cashuurtu way kacsanayd alaabooyinka qaar kamay soo degibay jirinba dekedeena Boosaaso alaabtu inagu soo degi jirtay kuwa Hargeysa lagu isticmaalo kuwa Burco lagu isticmaalo kuwa lagu isticmaalo ee meesha la yiraahdo wajaale ilaa Soomaali galbeed marka reer Boosaaso waxaan leeyahay walaalayaal kumitida
yaan dekadiina waad arkaysaan wixii beentii ay sheegeen idhaaheen dekada berbere ay kula wareegeen ay yidhaahdeen horumar baan idiin samaynaynaa dekadaan ballaarin midh intaa leeg may ballaarin war wax kale iska daaya wiishashkii alaabta soo dejin jiray iyo kuwii rari jiray baa daxalaystay waxay waa heshiisku inay qalab cusub keenaan waxamay keen kuwii horaaba daxalaystayba waxaa kaloo heshiiskii beenbeenta u ahaa inay dekada kordhinayaan may kordhin anigaa xoogaala waxay yidhaahdeen shaqaalaysiin baanu samaynayna shaqaalihii baaba dhinmayba waxay yidhaahdeen suuq xora baanu samaynaynaa oo aan berbere iyo meelahaasaan suuq ka samaynayna iska daa suuq xora inay sameeyaana suuqii sixir barar baabay soo kordhiyeenba waxaa kaloo yidhaahdeen shaqaalaanu geenaynaa dekedaha ay maamulaan d b o ee dunida dacaladeeda waxba may qaadin kuwii meesha ka shaqaynayay baabay qaar dhimeenba war iska daa wax kale dabdamisumay keenin 2 jeer baa dab ka kaca 2 jeerba waxaa lagu baktiyey daabshiil dabdamiska daabshiil ee berbera ee shirkadda gaarka ee daabshiil ayaa lagu baktiyey waxba ay ku soo kordhiyeen inay waxuun dhacaan mooyaane sixir barar bay soo kordhiyeen shaqalaan bay soo kordhiyeen dhowr qof baa xitaa ku dhintay xaqoodii may bixin oo maysin waxa bay yidhaahdeenba maraakiibta ayaa lagu leeyahay iyo alaabtii meesha markaa walaalayaal reer boosaaso war horumarkiina waanu jecel lahay soomaalinimadiina waanu jecel lahay annaga haddiina la afduubay idinku weli soomaali baa tihiin soomaalinimada waad jeceshiin yaan cabdiweligaas dekadiinna si yaroo maalayacniya oo aan soomaalinimo ahayn yaanu idinka wareejin oo intuu lacag yar qaatay isaga iyo kooxdeera baarlamaanka sidii hargeyso ka dhacdoo kale ka taxadira tusaalaha idin ahaata dekada berbera haddii taa boosaasanay maanta imaaraadku nigla wareegaan waxa ku xigaysa marka kismaayo laakiinse maanta dareenkii soomaalinimada shaqeeyey xildhibaanadii way u adkaysan kari waayeen faragelinta qaawan ee imaaraad iyo carabi nagu hayso hal loo duceeyo hal la berber istaago dhammaantiina waa laynoo shargaraya qof kastoo soomaaliya oo maanta ka gilgilo arrinka baarlamaankeenna aynu berber istaagno aynu waayo waa moral support walaalayaal haddaynu maanta taageerno oo aynu kacno moral support way noqonayaan iyaguna way shaqaynayaan laakiin haddaad tahdo qabyaalad iyo qurunkii aad berber taagnaatid war xaaladani maanta waa xaalad qaran marka arrimaha qaranku yimaadaan in masiirka ummadda soomaaliyeed waa inaynu u wada kacno walaalayaal waa inaynu taageerno waa waajibina guud suran iyagana waxaan leeyahay yaan ilaa caawa ilaa berrito laydin kala furfurin soo dhiga mooshinka naga qabta imaaraadku hadduu horumar noo samaynayo horu noogu samayn lahaa carabina waxay la dagaalamaysaa walaal run baan idin sheegaya turki bay la dagaalamaysaa turki bay arkeen oo soomaaliya maal gashanaya oo horumar wada oo horumar la taaban karo waddooyinkii muqdisho inoo dhisaya dhakhtaradii inoo dhisaya ciidankii inoo tababaraya horumar inoo samaynaya kuwaasay la dagaalamayaan nimanka la yidhaahdo allahu mustacaan carabtu waa xaasidiinba xaasidkana ilaahay baa nacayba bal maxay iyagu inoo samaynayaan markay naga hor taagan yihiin turkigay la dagaalamayaan siyaasadana walaaliyaan hasal fududaadina turkiga iyo xukuumaddeenna way sogyihiin samir baynu kaga baxaynaa iyo dhabar adayg waa aynu dhabar adeygno aynu dowladdeena iyo xukuumaddeenna berber istaagno soomaaliya ha israacdo ha noolaato aad iyo aad baan walaalayaal idiin salaamayaa waxaan idinku boorinayaa meel aad joogtaanba kiliibkana walaal faafiya bukaan socod oo dhan daaqadaha uga tuura gaadhsiiya walaalayaal insha allahu tacaala waa laga yaabaa xildhibaanaduna inay idinku jiraan qaar idinka mid a inoo wada gaadhsiiya haddaanu nahay midnimo qaranna hawsha waanu wadaynaa soomaalinima naga go-an ka daali mayno waayo sharaf baanu ku leenahay waqtigayga qayb ka mid a inaanu dee waajibkaabay guud sudhayba waa laa shukra calaa waajib inaan soomaalinimada ka hadlo aniga waxay dan igu jirtaa cabdisalaan ahaan iyo adigaba dhammaantiin macal bukaan socodka waxay dan igu jirtaa soomaali oo sharaf yeelata muqdisho nabad noqota waddankeenoo dega iminkaba alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa inanu nahnaa horta soo qoro walaalayaal alxamdulilahi rabbilcaalamiin baryahan qaraxyada waynaga yaraadeen ummadeenna soomaaliyeed war anigu kuwa muqdishona waan jeclahay kuwa hargeysana waan jeclahay soomaali aan necbahayna ma jirto intii yaradaa xalaytaan sameeyeyna haddii bulshada soomaaliyeed qaar ay iga soo cawdeen sorry baan leeyahay waan ka xumay xaal baan siiyey qabiilkaa iyo qoladaan xalayta ka hadlay iina soo duceeyo walaalayaal inaguna aynu soo ducayno dowladnimadana ay berber istaagno aynu la shaqayno saasaynu balana saasay horumar ku gaadhaynaa aad iyo aad baan idin salaamaya meelaad joogtaanba kiliibkana walaal sheergaraya wada shaqaynaha inaga dhaxayso aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu